markii ugu horreysay ee sayaka ay fasalka gashay dhowr gabdhood oo ay isku fasal ahaayeen ayaa gees ula baxay waxay kor uga qaadeen cidhifka goonadeeda dhowr sentimitir iyagoo ku leh sidaas ayay u ekaanaysaa mid qurux badan sayaka ma aysan diidin waxayna markii dambe wada galeen musqusha halkaas oo ay ugu sameeyeen timihii waagaas ugu caansanaa intaas kadib waxay baratay farsamooyin badan oo la xiriira isqurxinta iyo quruxda inkastoo aysan waxba ka fahmin casharada lagu dhigayo dugsiga haddana xirfadeeda qurxinta ayaa si weyn u horumartay markii ay gaartay dugsiga sare iyada iyo 3 saaxiibadeed ayaa lagu daray fasalkii ugu liitay sanadkooda boorsooyinkoodii waxbarashada waxaa ka buuxay qalabka isqurxinta halkii ay ka ahaan lahaayeen qalimaan iyo buugaag waxbarashadu waxay noqotay wax aysan dan ka lahayn maalintii waxay ku wareegi jireen magaalada iyagoo xiran dhar gaagaaban sawirro qaadaya kana samaynaya muuqaallo qosol badan kamarada hortooda habeenkiina waxay aadi jireen meelaha lagu caweeyo halkaas oo ay qoob ka ciyaari jireen ilaa waaberiga wax kasta ayay samayn jireen marka laga reebo waxbarashada aabaheedna gebi ahaanba dan kama gelin nolosheeda dhammaan lacagtiisa iyo dadaalkiisa wuxuu ku bixin jiray walaalkeed yar isaga oo doonaya inuu ka dhigo ciyaaryahan basebal xirfadle ah si uu ugu rumoobo riyadii isaga ka baaqatay markii uu yaraa noloshan jahawareersan ayaa sii socotay ilaa sanadkii labaad ee dugsiga sare maalin maalmaha ka mid ah ayaa macallinkii fasalka ka helay sanduuq sigaar ah oo ku jiray boorsadeeda inkastoo macallinku rajadii ka quustay ardaydaas haddana sigaarku wuxuu ahaa arrin si weyn uga hor imaanaysay shuruucda dugsiga arrintu waxay gaartay xafiiska maamulaha maamuluhu wuxuu u sheegay sayaka in haddii ay sheegto ardaydii kale ee la cabtay sigaarka laga cafin doono ganaaxa cayrinta laakiin sayaka hal erey kama aysan sheegin cid kale ugu dambayn waxaa loo yeeray hooyadeed qof walba wuxuu filayay inay gabadheeda canaanato balse si lama filaan ah ayay u difaacday waxay qiratay in gabadheedu qalad samaysay balse waxay sidoo kale sheegtay in dugsigu aanu xaq u lahayn inuu gabadheeda ku qasbo inay dadka kale magacyadooda sheegto maamulihii iyo macallimiintii way ka aamuseen hadalkeeda ugu dambayn sayaka waxaa lagu xukumay in si ku meel gaar ah waxbarashada looga joojiyo markii ay guriga ku noqotay waxay dareentay in nolosheedu dhammaatay waxay u malaysay in mustaqbalkeedu horay u burburay oo aysan jirin wax rajo ah laakiin hooyadeed marna kama quusan iyadoo aan u sheegin ayay ka diiwaangelisay xarun casharo gaar loo bixiyo sayaka ma ogeyn in tallaabadaas yar ay noqon doonto bilowga isbeddelka ugu weyn ee nolosheeda xarunta casharada gaarka ah waxaa ka shaqaynayay macallin lagu magacaabo hirata wuxuu ahaa nin dhexdhexaad ah oo timo gaaban leh islamarkaana xirta muraayado madow markii ugu horreysay ee sayaka timid xarunta muuqaalkeeda qaangaarka iyo habka ay isu qurxisay ayaa macallimiinta kale ka yaabiyey laakiin hirata kama uusan hadlin dharkeeda ama muuqaalkooda halkii uu canaanan lahaa wuxuu si daacad ah u weydiiyey sida ay ugu suurta gashay inay noqoto qof sidaas u casri ah oo moodo leh halkaas ayay xiriirkoodu ka bilaabatay markii dambe wuxuu siiyey imtixaan yar oo lagu cabirayo heerkeeda waxbarasho natiijadu waxay noqotay sidii la filayey sayaka waxay ka jawaabtay dhammaan su'aalihii si khaldan iyadoo heshay eber buuxa laakiin hirata ma niyad jabin wuxuu ku ammaanay inay ugu yaraan isku dayday inay ka jawaabto dhammaan su'aalaha halkii ay ka bannaanayn lahayd taasi waxay ahayd markii ugu horreysay ee qofku ammaano arrin la xiriirta waxbarashada sayaka waxay markii ugu horreysay dareentay farxadda ay leedahay in qofku aqoonsado dadaalkaaga maalmo kadib hirata wuxuu u sheegay inay doorato jaamacad ay mustaqbalka ku hamiso sayaka way aamustay 5 sano ayay ahayd iyadoo aan si dhab ah u furin buug waxbarasho mana ogeyn jaamacad ay gaari karto hirata ayaa si kaftan leh ugu yidhi haddii ay sidaas tahay maxaa diidaya inaad hiigsato jaamacadda kiyo waxaa la sheegaa inay ku badan yihiin wiilasha quruxda badan markii ay taas maqashay ayay indhaheedu iftiimeen iyadoo aan si dhab ah uga fikirin ayay magaca jaamacadda ku qortay warqaddii yoolalka markii ay guriga tagtay oo arrinta u sheegtay hooyadu aad ayay ula yaabtay saaxiibadeedna way ku qosleen qof walba wuxuu u arkay riyo aan macquul ahayn laakiin hirata si kale ayuu wax u arkayay habka uu wax u dhigi jiray aad ayuu uga duwanaa macallimiinta kale marnaba ma xukumi jirin ardayda wixii ay hore u sameeyeen wuxuu diiradda saari jiray horumarkooda maanta horumar kasta oo yarna wuxuu siin jiray dhiirigelin gaar ah imtixaankii labaad sayaka mar dambe eber ma aysan keenin waxay si sax ah uga jawaabtay hal su'aal inkastoo hal dhibi keliya ahayd hirata wuxuu u dabaaldegay sidii guul weyn aqoonteedu aad bay u liidatay maalin ayuu ku yidhi inay sawirto khariidada jabaan sayaka si dhab ah ayay isku dayday balse sawirkii ay samaysay wuxuu u ekaaday ukun weyn ardaydii kale way qosleen laakiin hirata isaguna qosol ayuu la dhacay isagoo aan marna niyadda ka jebin markii ay guriga ku noqotay waxay ku qasbanaatay inay walaasheed yar caawimaad ka weydiisato arrimo ay carruurta yaryari garanayeen aabaheed markuu arkay wuxuu bilaabay inuu ku jeesjeeso sayaka aad bay uga carootay cadho darteed waxay maqas ku jarjartay gacantii basebalka ee walaalkeed jeclaa maalintii tartanka walaalkeed ayaa qalad sameeyey sababtoo ah qalabkii cusub uma baran kubaddii uu qaban lahaa ayaa ka baxsatay kooxdiisiina way guul daraysatay dhacdadaasi waxay sii kordhisay xiisadda qoyska dhexdiisa hase yeeshee sayaka waxay bilowday inay ogaato in nolosheeda cusub aysan sahlanayn balse ay ahayd waddo ay tahay inay sii wado muddo yar kadib xarunta casharada gaarka ah waxaa yimid arday kale oo dhib badan lagu tilmaami jiray magaciisu wuxuu ahaa ryosuke qoyskiisa oo dhan waxay ahaayeen qareenno aabbihiina wuxuu ku cadaadinayay inuu mustaqbalka noqdo qareen sida awowayaashiis iyo aabbihii laakiin ryosuke wuxuu ahaa wiil aad u fallaago ah wuxuu maalintiisa inteeda badan ku lumin jiray ciyaaraha fiidiyowga wuxuuna si ula kac ah uga gaabin jiray waxbarashada si uu uga caraysiiyo aabbihii markii uu hirata sheekadiisa maqlay halkii uu canaanan lahaa wuxuu u soo jeediyey fikrad yaab leh haddii aad rabto inaad si dhab ah uga aargudato aabbaha ayuu yidhi marka hore si fiican wax u baro jaamacad fiican gal imtixaanka qareennimada ku guulayso marka uu ku faano oo uu ku farxo markaas u sheeg inaadan qareen noqonayn ryosuke aad ayuu ula yaabay wuxuu garwaaqsaday in tani ay ahayd habka xoog badan fallaagadii uu hore u samayn jiray maalintii xigtay ayuu iska tuuray qalabkiisii ciyaaraha wuxuuna si dhab ah u bilaabay waxbarashada sayaka markay aragtay isbeddelkaas waxay sii rumaysatay in hirata uu leeyahay awood gaar ah wuxuu awood u lahaa inuu arday kasta tuso dhinac cusub oo nolosha ah maalin kale hirata wuxuu la galay sayaka sharad yar wuxuu ku yidhi haddii aad hagaagan dhammayso dhammaan ingiriisigii dugsiga dhexe waxaan ku tusi doonaa sawiradaydii hore markii aan timaha dhaadheer lahaa sayaka markiiba way xiisaysay laga bilaabo maalintaas meel kasta oo ay tagto waxay sidatay buugaagteeda markii saaxiibadeed isu yimaadaan si ay u heesaan ama u madadaashaan iyadu gees ayay fadhiisan jirtay iyadoo erayo ingiriisi ah xafidaysa xitaa marka ay baaskiil ku socoto waddooyinka afkeeda waxaa ka soo bixi jiray erayo ay dib u celcelinayso dhammaadkii fasaxa xagaaga waxaa la qaaday imtixaan
natiijadii waxay noqotay wax aan la filayn. Sayaka waxay keentay dhibco buuxa. Hirata wuxuu fuliyey ballantii uu qaaday. Wuxuu soo saaray sawirro uu qaaday markii uu yaraa. Sawirradii waxaa ka muuqday nin dhalinyaro ah oo timo dhaadheer leh, qaabkiisuna aad uga duwan yahay kii hadda. Ardaydii oo dhan qosol ayay la dhaceen. Laakiin markii qosolku yaraaday, Hirata wuxuu bilaabay inuu ka sheekeeyo noloshiisii hore. Wuxuu sheegay inuu isaguna ahaan jiray arday dhib badan. Macallimiintii qaar ayaa ku tilmaami jiray qof aan waxba noqon doonin. Markii uu bilaabay shaqada macallinnimada ma ahayn sabab uu u haminayay. Wuxuu u galay si uu nolol maalmeedkiisa u helo. Laakiin markii uu arkay arday badan oo noloshoodu isbeddelayso, ayuu fahmay qiimaha shaqadiisa. Wuxuu ogaaday in mararka qaarkood erey yar oo dhiirigelin ahi uu qof badbaadin karo. Intii uu sheekadan sheegayay, qof walba wuxuu ogaaday in Sayaka ay miiska ku dul seexatay. Maalmo badan ayay habeenkii soo jeedi jirtay si ay wax u barato. Markii ganaaxii ka joojinta dugsigu dhammaaday, Sayaka waxay dib ugu noqotay iskuulkeedii. Laakiin daalka badan ee ka dhashay waxbarashada joogtada ah awgeed, mararka qaarkood way hurdi jirtay fasalka dhexdiisa. Macallinkii fasalka ayaa arkay. Markii uu maqlay in Sayaka doonayso inay gasho jaamacadda Keio, wuxuu ku bilaabay jees iyo qosol. Wuxuu si cad ugu sheegay in gabadh sida iyada oo kale ahi aysan weligeed gaari karin jaamacaddaas. Hitaa wuxuu ku kaftamay in haddii ay ku guulaysato gelitaanka jaamacadda, uu wax kasta samayn doono si uu ballantaas uga dhabeeyo. Ardaydii kale ayaa qosol la dhacay. Laakiin Sayaka ma aysan niyad jabin. Waxay istaagtay fasalka hortiisa iyadoo si geesinimo leh u sheegtay in ay dadaali doonto ilaa ay riyadeeda ka gaarto. Markii ay fiidkii gaartay xarunta casharada gaarka ah,